Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada wararkii caalamkoodin kaga imanaya telefishinka caalamiga ee Somali Channel xarunta dhexe ee magaalada London. Wararkana waxa uu diyaara anigoo Cabdilaahi Xuseen Mariya. Wararka aan idin haynana waxa ugu dooron wasaaradda haweenka dawladda ku meel gaarka ee federaalka ugu baaqday beesha caalamka iyo wadamada islaamka in ay kaalmo degdeg ah la soo gaaraan deegaanada ay abaaruhu sida ba'an u aafeeyeen ee gobolada dalka Soomaaliya. iyo culumaa diinta ahlus sunna wal jamaa oo ku baaqay in hay'adaha samafalku ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan shacabka ku dhibaataysan gobolada dhexe ee Soomaaliya. mudanayaasha baarlamaanka wadanka Soomaaliya oo iyaguna kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho su'aalana weydiiyay wasiirada iyo taliyayaasha ku shaqeeya arrimaha amniga ee dawladda federaalka. guddiga howlgalka abaaraha ee gobolada Salal iyo Awdal oo maanta iyaguna kulan ku yeeshay magaalada Boorame ee gobolka Awdal kuna dhawaaqay in ay fureen sanduuq wax loogu ururinayo dadka ay abaaraha sida ba'an u aafeeyeen ee ku dhaqan wadanka Soomaaliya. wararka caalamkeen idin haynana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha wadanka Tunisia oo lagu wado inuu soo dhiso dawlad cusub kuna dhawaaqay maanta qaar kamid ah wasiiradii hore ee dawladii madaxweynihii la riday in ay kamid yihiin iyo dawladda wadanka Israel oo gabi ahaanba la filayay in ay dhawaan burburto kadib markii laba wasiir ku xigeen ay ka baxeen xisbiga majaraha talada wadanka haya ee Labourka. madaxweynihii hore ee wadanka Haiti Jean-Claude Duvalier oo muddo 25 sano ah tarxiil uga maqnaa wadankaas oo maanta dib ugu laabtay. daawadow intaasi waa qodobadii u doorka roonaa warka haatanse iyagii fidsan balse inta aynan u gelin qodobadan iyo kuwa kale oo soo socda qadar yar oo xayeysiina.